الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله مسلمين دمانتي وسلامتهين ملك استوى تكونوا شهين إلهي وسبناتي سبحانه وتعالى. إلهي سبحانه وتعالى وحليه وإذا حييتم بتحية فحيوا منها أو ردوها. haddii laydinku salaamo salaantaas waxaad u magaranaysaa ugu ragaal celisaan oo ugu jawaabtaan mid ka sii wanaagsan. haddii kale aad kar weydaanna salaantii mid la madaceliya baa ilaahay subxaanahu wa tacaala leeyahay. macnaheedu ay tahay haddii assalaamu calaykum yidhaahdo waa inaad tidhaahdaa wacalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatuh. haddii aad kar weydo intii lagu salaamay waa inaad celisaa ood wacalaykum assalaam aad tidhaahdaa. rasuulkuna wuxuu leeyahay calayhi salaatu afdalu wassalaam. nin baa soo galay salaamu calaykum buu yidhi 10 buu yidhi. nin kala soo galay assalaamu calaykum waraxmatullahi buu yidhi 20 buu yidhi. nin kaloo saddexaad baa soo galay iyadoo xalaqadii la fadhiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu buu yidhi. rasuulku wuxuu yidhi 30. way weydiiyeen asxaabtii. wuxuu yidhi ninkii hore 10 buu qaatay maadaamuu hal mar ina salaamay. kii labaadna 20 buu qaatay maadaamuu 2 goor ina salaamay. kii saddexaad ee soo galayna 30 buu qaatay maadaamuu assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu isku darsaday. allahu akbar. 30 20 iyo 10 bay maraysaa. ilaahayna muxuu yidhi waan maqlaynaa aayaddii qur-aanka ahayd. maanta waxaa bilaabatay haddaba iyada oo magaranaysaayay la bilaabay nidaam cusub. waa lagu salaamayaa waxaa lagu leeyahay saaca. qofkii kalena wuu jawaabayaa waraba waraxmatullaahi wabarakaatuh wuu ka wadaa moogtahay. marka walaalayaal qofkaasi ajarkaa ma qaadanayaa? allahu akbar. maya ma qaadanayo wey macnaheedu laanna rasuulka calayhi salaatu wasalaam xadiisku suu tilmaamayo assalaamu calaykum 10 wacalaykum assalaamu calaykum waraxmatullaahi 20 wabarakaatuhu marka lagu darana waxa weeye waa 30. qofkaasi 30 buu qaadanayaa. marka walaalayaal caajisku meel walba yuu naga gelin insha allahu. salaanta aynu dhammaystirno. haddayna dhammaystiri karna si fiican aynu isu salaanno. qofka kalena waa inuu si fiican uga celiyaa haddii ay qoraal tahay iyo haddii ay odhaansho tahayba. marka maanta moobeelkaaga aad wax ku qoraysid hal mar oo keliya ood ku seefgaraysid wacalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatuh iyo hal mar ood ku seefgaraysid assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu keliya ayaa kaaga filan. markaad qortid inta kale isagaas dhammaystiraya. marka salaanta insha allah aynu ku dadaalno sida ay kusoo degtay rasuulkuna inooga tegay aynu isu salaanna insha allah. wacalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatuh.